murashaxiinta kale ah Barkhad Maxamed Hurre oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale Cabdicasiis Cabdilaahi Dhoobagaab oo u sharaxan doorashada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maanta magaalada Burco ka daafuray 22 xafiis kuwaasi oo ka qayb qaadan doona murashaxiintu doorashada inagu soo aadan munaasabadii xadhigga jarka ahayd ee loo qabtay 22 xafiis waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer madax dhaqameed haween dhalinyaro iyo sidoo kale taageerayaal tiro badan markii ay murashaxiintu ay gaadheen xaafadaha ay ka daafurayeen xafiisyadan waxay halkaasii ay kala kulmeen soo dhaweyn ballaaran ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay madax dhaqameed haween dhalinyaro iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga wadani iyagoona sheegay in murashaxiintaasi ay garab taagan yihiin aynu furayno dhowr iyo 10 xafiis oo aynu furayno labada xildhibaan ee kala ah Barkhad iyo Cabdicasiis Cabdilaahi oo u kala sharaxan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka labadan xildhibaan waa labadii xildhibaan ee shirkii Ali Saciid lagu doortay ka soo baxay 15 xafiis oo maanta laga furayo magaalada Burco oo ay leeyihiin labada xildhibaan Barkhad Maxamed Hurre oo ka sharaxan xisbiga wadani dadka arkaysaana waxa weeyaan taageerayaashoodii halkan ka muujiseen taageero fara badan oo cudud leh waxa la inaga rabaa maalinta astaanta inaan la seegin labada xildhibaan golaha wakiilada waa awrka golaha deegaankana waa 301 waxaan leeyahay wixii aan labada nin ahayn waa furfurka Ali Saciid iyo tafaraaruqa Ali Saciid looma baahna Ali Saciid labada nin bay doorteen oo isku raaceen dadka qaarna iyaga is doorta qaarna waa la doortaa sidoo wada ogeyn reerku waxay soo saareen labada xildhibaan Cabdicasiis Maxamed Cabdilaahi iyo Barkhad Maxamed Hurre maanta waxaan ka furaynaa halkan waxa weeyaan xafiiskii faarax sumuli ee qasabka tiradiisu waa kii 22aad labada murashaxayna wadnaa waxa weeyaan waa baarqabka geeliisa oo calaamadeenu tahay Barkhad Maxamed Hurre iyo waa 301 waa Cabdicasiis Dhoobagaab waxa weeyaan Barkhad Maxamed Hurre iyo Cabdicasiis Cabdilaahi Dhoobagaab isfarayna waxa weeyaan numberka iyo astaanteena oo ah 301 awrka baarqabka ah oo ah Barkhad Maxamed Hurre waxaan leenahay guul baan rajaynaa taageerayaasha mayalka adag ee labadeeda xildhibaan Barkhad iyo xildhibaan Cabdicasiis oo aan leeyahay waa inoo koob iyo 30 May waxaanu leenahay cod iyo cududba waan idin la garab taaganahay doorkan maanta la jab looma baahna TPLFna looma baahna waxa weeye Ali Saciid wuxuu isku raacay labada musharax shaki kuma jiro in labada qof soo baxayaan وحلبانا soo shiribay waa xildhibaanada ogtiin siday ku yimaadeen waxaan u mahadnaqayaa dhammaanba taageerayaasha ee taageeraya labada xildhibaan anagu daan nahay haweenka beelweynta Ali Saciid taageeradeen waa inay haataan labada nin soo saarnaa insha Allah Barkhad guulaysa weliga gadaal hamarin Cabdiyow garabka aygiyo guulalo waan taageersanahay aan la garab taaganahay taageero migiyo musaale waxii wadanahay mas'uuliyiintiisii gobolka waxaan marinaa xafiisyadii labada musharax isku sidkan xafiisyo badan oo dhowr iyo 10 ka furay xadhiga ka jaray maanta ayaanu xadhiga uga jarnay annana xusbi aan la shaqaynaynaa labada musharax ee dhalinyarada ah ee soo xusheen sida u burbar taagantiin waxaan iska filaynaa in 31 May insha Allah codkiina ku hubsan doontaan ugu dambeyntiina Barkhad Maxamed Hurre iyo sidoo kale Cabdicasiis Cabdilaahi Dhoobagaab oo u kala sharaxan golaha wakiilada iyo sidoo kale golaha deegaanka oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa u mahad celiyay taageerayaashooda dhammaan taageerayaasha garabkayga taagan ee sida weyn u soo muujiyay taageeradooda marka hore waad mahadsantihiin xiligu waa goor wax saar gadaa lagu dheelayaa shacbigu garsoore ka yahay waxa guul sheegan kara cid iyagu u gartaan cid idinku u garataan baa guul sheeganaysa insha Allah waxaad muujiseen in garabkayga tihiin anigoo ah Axmed Maxamed Hurre oo ku magac dheer Barkhad iyo Cabdicasiis Cabdilaahi Maxamed waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dadka xaafadan ee runtii sida weyn u soo abaabulay u soo baxay muujiyay dareenkooda rabitaanka xisbiga iyo rajada shacabkan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka rajaynaynaa maalinta ay codaynta noqotana sidaa iyo si ka badan inay isu soo abaabushaan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan telefishinka Universal magaalada Burco